Okay, so cashirkeena maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa qaybo ku saabsan suuqa. Waxaan idinla soo wadaagay cashiradii kuwan ka horreeyay ama videoskii kuwan ka horreeyay waxyaabo la yidhahdo resistance, support, iyo upward iyo downward trend, kuwaasoo kala ahaa kuwan ama saddex aan idinla wadaagayo oo hore aan idinku soo sheegay inay yihiin basically waxyaabaha suuqa maamuli doona si aynu uga ganacsanaa ama uga samayno lacag xadidan maalin walba adigoo ku dhaqmaya protocols iyo waxaan idin soo sheegay oo ku saabsanaan doona suuqa wuxuu leeyahay dabeecadahaas wax laga yaabaa inay morally ku bedelaan waxa laga yaabaa inaad markasta isla lacag degdeg u samee adigoo aan marxaladaha gelin discipline waxa la yidhahdo ku tareer garanaysaa because of dad baa maalin walba waxay kala hoydaan suuqan intaas oo boqol oo milyan oo dollar waxaan jeedaa boqol oo kun oo dollar ayay kala hoydaan traderisa iyagoo lasoo galay lacag yar oo kooban haddii aan idinla wadaago tusaalahaana waxaa jira leaderboardkaas waa leaderboardka aan doonayno inaynu haddii Soomaaliya joogno inaynu u tartanno waddan walba waxaa ku jira leaderboardka sida waddanka ugu horreeya hadda IQ optionka ama platformka idinla wadaagayo leaderboardkiisa toddobaadka isagoo xidhmi doona maalinta isniinta ee dambe waxaad aragtaa isniinta dambe isagoo xidhmi doona oo furmay isniintii dhawey xidhmina doona maalinta jimcaha oo xidhnaan doona waxaan u jeedaa maalinta isniinta soo socoto xidhmi doonaa wuxuuna furmayaa maalinta isniinta isla maalinta isniinta habeenimada axadeedna uu xidhmaa so ninkaas waxaad arkaysaa ninka ugu horreeya leaderboardka wuxuu shaqeeyay platformkan oo keliya 254 kun oo dollar usbuuca isagoo suuqa la soo galay lacag yar oo dhowr kun ama wax ka yarba hadday doonto ay tahay ayuu sii marayaa 200 iyo maxaan ku raadayay 40 so inagu kuwa miyaynu nahay sida kuwa inaan u fikirno waynu nahay damaceeguna waynu nagu jiraa waa inaynu galnaa so waxaynu laakiin galaynaa markaynu la nimaadno aqoonteedii inaynu waqti siin karno inaynu ku dadaali karno anigu waqti badan baan soo geliyey waqti badan iyo maaragtay chances badan oo xitaa noloshaydan soo geliyey intii ugu dambeysay si aan uga faa'iidaysto noloshayda anigoo ku fikiraya mar walba sideed u noqotaa naftaada booskii naftaada aad u noqotaa so Soomaaliya ama waddankaad joogto waxaad ku tiri karayn doontaa oo idiin soo dhigayaa leaderboardka cidda ugu horeysa cidda ugu dambeysa sida loo kala horreeyo waxyaabahaas oo dhan soo dhigaya qaarkood waxay shaqeeyeen 143 kun oo dollar qaarkood 290 kun bay sii marayaan waana saddex shay wuxuu soo furan yahay marka toddobaadka la gaaro waxa laga yaabaa inay kuwaas milyan ku dhawaadaan ama ay milyan is gaaraan marxaladda loo yaqaan suuqan sida loo ogyahay ma laha wax la yidhaahdo weekend marka laga trade garanayo binary and digital laakiin haddii aad forex keliya tahay waxaad trade garanaysaa weekend uu ka badan karaa uu ka yaraan karaa adigoo oo maaragtay inay ku xisaabtamaya mostly forex wuxuu shaqeeyaa 5 cisho keliya laakiin maalintii 24 saacadood oo dhan buu ku shaqeynaya halka kan maalin oo dhan uu ku shaqeynaya laakiin sometimes saacadaha qaar uu raf yahay inaad gashaa inay adag tahay for example suuqan si aad uga trade garayso binary and digital options waxaan idin sheegay inuu time jiro timekaasi suu jiro wax baan analyze garayn doonaa suuq baan analyze garayn doonaa suuqaasaan doonaya inaan buy u galo lacag $20 aan doonaya inaan dhigto si aan buy ugu galo balaadhi hoos bay sheegtay waa inaan kor u galaa haddii aan doonayo inaan buy galo haddaan doonayo inaan sell u galana inaan hoos u galaa so suuqa muxuu ii sheegayaa marka wuxuu ii sheegayaa inaan buy iyo sell ugu kala macaashi doono okay marketka ama meesha aan marayo su'aalaha waxaan ka jawaabayaa markaan cashirka dhameeyo fadlan so chatka waxaan u eegayaa inaan hubiyo in cilad jirto videoga so please isamra markaasaan idinka jawaabi doonaa so waxaan halkan idin sheegay buy inaan u galo $20 baan dhigtay anigoo ku xisaabtama 185 faa'iido ah daqiiqada soo socota so maxaa dhigtay $20 $17 baanan galayaa khibrad maaha inay iskaga timiday maxaan ku rahdaa waxa loo yaqaano suuqyada isbedelkooda macnaha waxaan iska galgalayay maaha waxay ku timid waqti badan oo geliyay si aan u kala ogaado waqtiga suuqa buy galaya iyo ka sell galaya sidee ku ogaadaa ka suuqa ka buy galaya iyo ka sell galaya waxaan ku ogaanayaa ka buy galaya iyo ka sell galaya wax la yiraahdo indicators inayna maamuli doonaan indicatoreskaas maxay noqon doonaan indicators waxay noqon doonaan hadda market baan analyze gareeyay positionkii aan ku analyze gareeyay buu ku fadhiistay anigoo buy u galay lacagteedii investmentkii bay soo noqotay because of hadduu ka hoosin lahaa investmentkaygu khasaari lahaa laakiin ma khasaarine analyzingkaygan hubiyay inuu suuqa buy u galay doono so waxa ugu khasaaraha ugu badan ay soo gaadhayo wuxuu noqdaa mostly 2 trade oo kamid ah 30 trade sidoo kalena wuxuu noqon karaa draw wax la yiraahdo oo ah zero profit ma helin khasaarana ma gelin oo lacagtaydii oo ii soo noqotay so hadda ma gali karo waxaan u sii gali karin waxaan doonayaa resistance zone iyo support zone wax la yiraahdo inaan idin soo sheegay gidaarka hoosta markuu suuqu ka soo noqdo support buu galaa gidaarku soo taabtaa uu ka soo noqdaa
kor buu taxaa support wax la yiraahdo hadana gidaar ka soo booda uu soo noqda sidan aad arkaysaan marxaladaha uu ku jiro waa support iyo resistance ka support ku ka galay resistance buu galay support kuna markuu hoos soo noqdo suuqaasi waxa la garanaysaa inuu trendkaasi upward yahay inuu downward yahay kor buu halkaas ka soo bilaabmay hoos buu trend u ahaa trendka imika soo socdaayna waa upward suuqaasi kor buu socdaa waxaan idin la soo wadaagay inuu yahay market analysis wax la yiraahdo inuu jiro suuqa faa'iidadiisa iyo newskiisa uga akhrisato adigoo isticmaalaya waxyaabaha qaarkan sidoo kalena ka adeegsanaya ama isticmaalaya waxyaabaha loo yaqaano news fundamental analyzing isagoo oo ku salaysan suuqaasi saamaynta uu ku leeyahay caalamka lacagtan ku jira waa euro USD maanta Mareykanka maxaa ka dhacay qalalaasi ma ka jira oo wadanka koowaad ee adduunka ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha so mostly lacagtiisu waa stable ma dhacdo laakiin lacagta maanta waxa laga yaabaa Faransiis ama Japan bay lacag qalalaasi ka jireen maalmihii la soo dhaafay so waxa dhici karta dhaqaalihiisa inuu macnaha yeesho waxa loo yaqaano unstable ama instability inuu yeesho kuwaasoo ah in suuqa aadan ka tareer garin walow uu kor iyo hoos meeshu doono dhaqaaqayo sababtu maxay tahay waxa dhici kara inuu mar kaliya bedelo wadankaasi dhaqaalihiisu hoos u dhaco so waxaad iska ilaalinaysaa wax alla wixii JPY ku sarrifmaya ama Japan yen lacagta loo yaqaano ku sarrifmaya adigoo eegaya hadday Australian dollar ku sarrifmayso haddii ay ku sarrifmayso JBP iyo Great Britain pound ku sarrifmayso waxa alla wixii hadday USD ku sarrifmayso waxa JBP ku sarrifmayo dhan JPY ku sarrifmayo dhan waad iska ilaalinaysaa waxaad kaga ilaalinaysaa wadanka qalalaasa ku jira dhib baa ka jirta waxa dhici karta fundamentally inay khubaradu maanta way ka joogaan so hadaad ku taxadirta aad taxadir ku geli weydo waxaad ku galaysaa halis waan iska ilaalinaysaa Facebookii oon idiin soo sheegay hadda uu furan yahay laakiin 5 minute plus baa tirir so 5 minute plus baan tirir garan karaa anigoo gashanaya lacag ah 85 anigoo 3 faa'iidaya haddaan sell u gala yiraahdana sell baan u galayaa 9 minutes markay dhamaataan investmentkaygaasi profit iyo loss aan kala ogaanayaa anigoo ku xisaabtamaya inaan profit helo 80% so waxyaabaha idiin soo dhigay ama idiin soo sheegay waxyaabaha ka mid ah waxa weeyaan suuqyadu inay aad ka warhayso fundamentally sida looga warhayo suuqa si loo ilaaliyo meesha uu jihada u haysto iyo si looga warhayo suuqani meesha uu tegi karo ama uu tegi so waxaynu faa'iidi doonaa ITM iyo OTM oo idiin soo sheegay entry exit baynu idiin soo sheegay fiidiyoyada hore dib u daawacdaan arag casharka caawa ku saabsan yahay maanta uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano success rate means muxuu yahay success rate in adisho binary-gu dad baa u fahansan inuu sidii khamaar ama forex ka waxa la yiraahdo iska khamaar inuu lacagta galayso ama signal lagu siiyo codad signals lagu siiyaa isku haleyn ama cid ku soo dirto lacag lagaaga cuno lacagtaada ku tareer garay adigoo ku tareer garay lacag ka yar $10 maalin ama maxaa ku leedahay noloshaada inta ku tareer gareynaya marka hore financial statement baad samaysanaysaa waxaad ilaashanaysaa lacag aad marka hore afford gareyn karaysaa la imanaysaa suuqa $10 waad afford gareyn karaysaa insha Allah ku xabtaa maalintii waxaad ku cabtaa laga yaabo $10 ballaymo ku gal ku tareer garay waa marka aad barato ee maanta ma aha maanta laakiin 10,000 oo waxaad haysataa demo account oonan ka dhamaanayn maalin walba aad ku isticmaali kartaa inta aad account-ka IQ option ka haysato IQ option sida la iskaga register gareeyo fiidiyoyadii ka horeeyay ku jira iska register garee account-kaaga verify ka dhig magacaaga saxda ku register garee si aad hadhow bankigaaga iyo kaarkaaga u gelin doonto because of kan hadhow toole platform kale ama platform management waxay ka rabi doonaan waxyaabo sharciyeysan si aad lacagna u shaqeysato lacagna aad u heli karto lacagtaas oo ah mid sharciyeysan si aad lacag sharciyeysan hesho waxaad u baahan doontaa waxa loo yaqaano inaad baasaboorkaaga ama geliso waxaan ku raahdaa ID card ama ID wax la yiraahdo sidoo kalena aad kaarkaaga sawiri doonto hadhow toole bankiga si loo xaqiijiyo inaad bankan adigu leedahay iyo in kale hadhow toole withdrawal hab ka duwan habka bank cardku mari doona kaasoo ah in bankigaaga transfer wire lagugu samayn doono wire transfer iyadoo la isticmaali doono Swift code iyo IBAN number wax la yiraahdo dheer oo ah numberka international bank to bank lagaaga soo shubay maadaama waxaan suuqa central bank uu ka imanayo bankaaga dhexda ay rasmiga ay ku soo dhaadhici doonto okay aynu isla aragno mar success rate ku yahay success strategy aad marka hore ku trade garanayso ha ka dhigin every trade hadaad ka dhigto 100 trade aad samayso 100 ITM iyo 100 OTM ah 100 aad use garayso waxaan jeedaa 50 aad use garayso iyo 50 ITM oo win garayso ha ka dhigin waxaad ku dadaashaa inaad badiso faa'iidadaad maalinta loo yeelanayso iyaga oo ah halka aad success rate-kaagu uu noqon karo means macna every 100kii aad samayso waa inaad heshaa 80 ITMs iyo 20 OTMs iyo OTMs si aad u heli karto si aad ITMs iyo 20 OTM ah
khasaar 20 trade dib ma laha boqolkii trade samaysaa dad 80 maanta aad ku guuleysato waxaad haysataa faa'iido for example hal trade baan imika iska galay anigoonan wax ka dhalay wax indicator isticmaalayno isheedan ku qiyaastay si aan u barto okay halka trade meeshuu socdo suuqu sell inuu galo rabaas laakiin sell ma gali karayo wali baa uu sii xajisanaya kaba soo qaadba $2 baan ku galay sell $2 baan sell ku galay $2 buy bay iga dhaqaaqday $2 haday buy u dhaqaaqday maadaama ay buy u dhaqaaqday ama aan lose gareeyay $1 iyo waxaan imika faa'iido ku jira inaan lose gareeyay ka soo qaado OTM ay ugu noqotay maadaama position kan ka galay maxay idin sheegay support ma aha resistance no ma eka resistance uu dhow yahay laakiin waad sugaysaa si aad resistance ka hesho laba candle ba isku xigaad sugaysaa oo ah signal aan candleska ku ogaan doono hadhow toole waxa weeyaan success rate kaagi hal trade baan hadda inaan win gareeyo ku jira halkii trade baan helay ama waaban lose gareeyay ka soo qaad 20 trade baan maalintii galay 20kii 5 kamidaan lose gareeyay 15 kamidana waa win gareeyay maxaan ku jira maanta faa'iidaan ku jira mise khasaaraan ku jira waxaan ku jira faa'iido sababtaan faa'iido ugu jirana waxay tahay 20 trade oo sameeyay 5 trade ka badiyay so 15 baan win gareeyay halka aan ka khasaaray waxa loo yaqaano waxaan ku raadayay 5 trade okay hal trade baan hadda waxaan khadka stable aan ahayn laakiin loss deal inuu yahay win deal yahay ma arko jawaabteedii ma arko waxaan filayaa khadka laakiin inay isleeyihiin waxa la yiraahdo videogiga iyo okay shaashada okay shaashada ayaa hack shaashadayda ayaa wax ku soo hormeen sorry waxaan filayaa okay halkii trade sell baan u galay win buy bay ugu noqday si aanan buy u galin OTM baan galay aan out of the money baan galay si aan in the money u galo waxaan u baahanahay inaan eego candle kan sugo candle ka ku xigana aan sugo si aan u arko meesha uu ITM kaygu noqon karo ama aan win deal kayga ama aan ku samaysan karo waxa loo yaqaano maxaan ku dhahaayay deal qurux badan oo aan ka faa'iideysto okay waxaan idin wadaagayaa marka waxay yihiin OTMs ITMs maxaa lagu yiri shaashadayda maxaa idin la wadaagay hadda waxaan idin la wadaagay in loss deal iyo win deal aan kala gali karo anigoo ku xisaabtamaya trade-ka mar walbana nin professional oo adduunka ugu professionalsan trade-ka uu lose gareeyaa laakiin wuxuu ku xisaabtamaa possibilities-ka maanta ku lose gareeynaya possibilities-ka ku win gareynaya $10 baad la timiday 10 trade baad gali kartaa adigoo $1 u galaya maxaa tahay $1 baan halkan ku jiidayaa chances la si aan 10 chances u haysto $10 si aan ugu jiido suuqaaban abu galay abbaaban u galay meeshaan ka galay ma arkaysaa waa meel qaldan totally way qaldan tahay even though buy ku jiro way qaldan tahay maxay ku qaldan tahay buygiisii weli uu dhamaanayaa inuu soo dhamaanayna OTM wax la yiraahdo ayaa ku sheegaya oo ah inuu suuqa isagoo buy ah haddana ay qaldami karo trade-kaagaas so adigu markasta trade sax eego summary yeelo qofku marka uu galayo trade win ah wuxuu eegtaa waxyaabaha loo yaqaano support wuxuu eegtaa 20 times baad ka power weyn tahay marka la yiraahdo trade caadi aad galayso okay so haddaba aynu sii wadno xagga uu socdo trade-kaasi wuxuu galayaa successful rate-kaaga ama waxyaabaha rate-kaaga lagu xisaabiyo waxa loo yaqaano waxaad ku xisaabtanaysaa inaad maalintii hesho waxa loo yaqaano 20kii trade 15 ku guulayso so maalmaha ugu horeeya haddaad 20 kaba lose garayso don't worry ku celi beri haddaad 2 trade win garayso practice ah saan dambe faa'iidad ku jiraysaa kunta faa'iidad ku jiri midna ogow wax robot la yiraahdo la isticmaalayo ma jiraan iska ilaali robotka bini'aadanka ka caafimaad badan ka maskax badan dareenna kula shaqayn kara suuqan maadaama oo aad dhowr cisho hadaad ku jirto waxaad fahmaysaa suuqu meesha uu u jeedo jihada uu samaysan karo iyo waxyaabaha uu maaragtay uu ku ganacsan karo qofku okay waxaan filayaa salaadii baa idinka leedin gaadhay dadka waddankeeni jooga halkan asxaab baa igala hadlaysa iska soo tukada recording uu socdaa waad ku ceshan doontaan live-ka session-ka YouTube-ka so trade-kaygaasi waxaan helay 0.85 okay trade kale haddana $1 aan galay 10kaygii maxaa ii dheer imika 80 cent faa'iidaan hayaa 10 kale trade aan galay buy baan u galay meel qaldan baan ka galaya laakiin buy baan u galay trade-ka ku xiga buy-gii waxaan ku jiraa weli waxa loo yaqaano haddaan position ka galo imika
ITM waxa la yiraahdaa helay ITM oo ah in the money because suuqa market si fiican buu sii socdaa buy wuxuu ku jiri karaa breakout wuxuu gali karaa breakable moment ilaa gidaarkaas ka soo taabto kulamidana inuu breakout ka ku jira laga yaabo okay ka soo qaad trade-kii labaad ayaad gashay trade-kii labaad win ama loss baa kugu yimid waa marka practice ku jirto mar walba ku celceli account-kaaga practice-ka ku celceli win ama loss baan galay trade-ka xisaabsanayaan ma xisaabsanayo okay trade-kii labaadna weli draw buu kaga jiraa aan doonay faa'iido okay maanta maxaad faa'iiday laba trade oo ganacsiyaad faa'iiday lacag maxaad khasaarahaysaa waxaad $10,000 8 baad khasaarto $2 oo kaliya ku haray waa marka aad practice account-ka ku jirto real account-ku waa same waa suuq kaliya baa laga ganacsanaya okay ku jir practice-kaaga ilaa inta aad ka aqoonsanayso in suuqan guarantee ama aad maskaxdaada nadiif u helayso hadda wuxuu bilaabayaa sell candle indicator-ku wuxuu sheegay inuu candle sell hormaro si uu hoos u soo celiyo suuqa buy-ga laakiin weli waxaa iscelinaya bull iyo bear waxa la yiraahdaa dibi iyo butigi oo suuqi kor iyo isku haysta down so waxaan u noqono session-ku halka uu ku socday session-kii wuxuu socday success rate-kaagu inuu noqdo 80 ilaa 20 hadaf ma possible baan halkan ku qoran ma possible miyay tahay in boqolkiiba boqol la guuleysto possible miyay tahay in boqolkiiba boqol la guuleysto maya cidna possible kuma ahayn boqolkiiba boqol la guuleysto ninka ugu khabiirsan baan boqolkiiba boqol guuleysto maxaa dhacay waxa dhaca waxan waa suuq dawlad baa kala ganacsanaya marka adi dawladda de ma waxaad dawladdii adu miyaa adaa wax u iibinay mise adaa wax ka iibsanay maya adu retail trader baa tahay nin ganacsanaya naftiisa u ganacsanaya so waxaad akhrisatay aqoontaadii wixii aad isku base garaysay baad suuqa la timid si aad uga faa'iidayso so waddan hebel baa lacag iibiya ama alaab iibiya stock alaabtaasoo huba waddanka hebel buu ka iibiya lacagtiisii baan lacag investment gashaday so maxaan gashanayaa maadaama waddankaasi iibiyay lacag badan oo wuxuu iibin doonaa alaab badan marka lacagtiisu way jabantahay iibsadaan ku galayaa so aqoontaasaan ku base garaynaya aqoontaasoo ah mid aanan hubin marka aanad hubinna ninka ugu aqoonta badan lagu analyzing badan wuxuu ku galaa 95% okay ninka ugu fiican ee ugu analyzing badan wuxuu ku galaa 95% fadlan su'aalaha waxaan ka jawaabayaa markaan cashirka dhameeyo adiga oo raadiyo walaalahay ii dulqaata markaasaan su'aalaha idin jawaab walba doonaysaa idin sii doonaa muxuu yahay best ama minimum success-ka ugu fiican ee inaad samaysay waa boqolkiiba 80 dad maanta boqolkiiba 80 faa'iido hayso faa'iido la hooyanaysa muhiimadaad ku hooyanaysaa muhiim maaha waxaad la hooyanaysa muhiim maaha muhiimadu waxa weeye maanta xageed la maraysaa xageed se u jeedaa suuqaaguna halkee maaragtay uu u jeesan karaa so maanta waa inaad barataa OTMs-ka 20 inaad ka dhigi karto ITMs-kana aad ka dhigi karto 80 okay intaa wixii ka dambeeya waxaan doonayaa inaad ku celcelisaan cashirka ah practice idinkoo isticmaalaya indicators-ka aan idinla soo wadaagi doono oo ah MACD ama stochastic waxa la yidhaahdo stochastic isticmaal adiga oo qaadanaya talaabooyinka aan ii sheegay adigoo raacaya waxaad soo furaysaa indicator section-kaaga aad soo furaysaa marka aad indicator section-kaaga soo furto waxaad ku jiidaysaa popular kadib waxaad ku jiidaysaa stochastic oscillator ama stochastic waxa loo yaqaano oscillator-ka oo ah indicator-ka hoos idinka muuqda soo jiid wuxuu idiin sheegayaa size period-ka smoothing-ka period waxaasoo dhan apply because of practice baan ka tan leeyahay meeshan markaad tiraahdo indicator-ka bluega haddaad aragto isagoo afka kor u taagaya micnaheedu waxa weeyaan suuqaas buy buu galayaa kacas hadduu sarreeyo suuqa sell buu u dhaadhacay laakiin ka bluega baa doonaya inuu buy u celiyo suuqii waa dibigii iyo wixii iscelinayay maxaan ku leedahay butigii oo hadda suuqaasi muxuu u badnaa buy buu u badnaa in yaroo sell u galay si aan u ogaado suuqii indicator-ka wuxuu sheegayaa waxa la yidhaahdo inuu suuqa kor u yar celiyo okay korkii aan u celiyay baan ku analyze gareeyay isagoo wejiga bedelan kara indicator-kaas kor baan ku analyze gareeyay si aan kor ugu analyze gareeyo suuqa maxaan galayaa buy baan galayaa buy si aan u galo waa inaan maaragtay suuqa u raacaa halkaas ka galaa anigoo isticmaalaya indicator-kayga halkan aan odhanaya $5 ii geli indicator-kaasaan buy u galay waan iska sugayaa practice-kayga iyo ku celcelintiisa ayaa ku fahansiin doonta indicator-ku meeshuu u jeesanayo so buy baan ku galay buy maadaama ku gala suuqii inuu hoos u jeedo waxaa dhici karta inuu sell u dhaadhacayo suuqii iscelcelinay laakiin inaan buy ku galo maxaa ii caddaynaya waxyaaba badan baa isku yar base garaynayaa suuqan inuu trendkiisu suuqa hadda buy ku jeedo inta badan uu sellna usoo noqon karo maadaama uu soo taabtay gidaar resistant la yidhaahdo
waxaad ku celcelinaysaa indicatorkan buyga markuu ka buluuga aad aragto inuu afka soo taago haddaad kii buluugii oo sida farahaas oo kale afka isku dhaafayaan aad aragto ama kacasoo sii sarreeya aad aragto selbu suuqa inuu noqdo rabaa hadda laakiinse waxaa celinaya kii greenka ahaa oo u diidaya inuu sel galo haddana waxaad aragtaa inay iscelcelinayaan oo xaalad ay ku jiraan labada suuq ay isku saamixi lahayn inay labada dhinac u bato tariirkaygaasi waxaad aragtaa $5 $4.25 inaan daqiiqada aan ku faa'iiday maxaad samaynaysaa ku celceli luusgarey waxaad luusgaraynayso oo dhan 10,000 oo waxa ku jira haddii ay kaa dhamaataa dib u charge garaynayso platformka waa free suuqii caadigii baanad la gashay so maxaan ku jiiday buy baan ku jiiday labadaa haddaad aragto ka buluugaayo afka taagaya buy buu celinayaa awooddiisa suuq aadna aragto meesha inay buy u badnaa meel yaroo resistant and support oo soo yaro taabtay selkiina aad aragto ku faa'iidayso buy ku kale waxaad ku galaysaa buy so practice-ka intaa ku yar celceli maanta videoga cashirku waxaan diidayaa inuu nagu dheeraado so salaadaad tegaysaan idinka qaarkiin dadka videoga daawan doonana waxaan idin rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidaysataa live sessionska subscribe si aad online mar walba u arki karto videoska aad ugu celceshan karto kana faa'iidayso the more aad practice samayso waa the more aad ka faa'iido badan tahay suuqa sida waxaan macnaha loo yaqaano maxaan ku idhahdaa waxaad ka faa'iido badan tahay waxa loo yaqaano inaad su'aalo weydiin karto aqoontiisii ku faa'iidaysan karto so suuqa waxaan idin sheegay cashiradii ka horreeyay wixii aan amda samaynayo dhan ku salaysan yihiin qofka aan fahmayn ha ku soo noqdo videoska iyagoo clear ah baan soo geliyey si looga faa'iidaysto kuwii hore waan ka saaray channelka hala soo eego hala eego haddana waxaan ka jawaabayaa su'aalaha anigoo dhowraya waqtiga aan ku jirno sessionkeena diidana in videoga ku dheeraado dadka youtube ka daawanaya so su'aalahaan si degdega ugu jawaabi doonaa qofkaas su'aasha chatka iisoo qor qofkii markaa su'aal hadda raba okay su'aashan sugaya so waxaan idiin sheegay in suuqani uu mar walba ku salaysan yahay aqoontaada aad ku salayso aad ku bis qofkaaga aqoon fiican oo kugu dhaamay ma jiro khibrad ba laakiin lagugu dhaamaa suuqan waxaa lagu sameeyey in lagaga ganacsado retail trader ahaan adigoo gurigaaga iska jooga mostlyna waxaad naftaada u sheegtaa waxaad qabanayso iyo hamiga iyo waxaan kugu kalifayay maxay waxa weeyaan laba kala go'aansan anigu labaan go'aansaday maalintan suuqan bilaabay inaan 40 sano suuqan macnaha shahaadadeeda la tago meel aan ku shaqeeyo qof kale oo shirkad iskale aan booska ah ii noqdo oo noloshiisa taajir aan ka dhigo hadhow toolena uu qofkaasi maaragtay isagu taajiro waxa ugu badan in helaa in ay promotion noqoto title walba shaqada ka helo iyo inaan anigu naftayda go'aan u gaaro oon booska naftayda noqdo meesha aan doonana aan ku shaqaysto lacagta aan doonana aan samayn karo anigoon ku xisaabtamayn wax income ah oo limited ah ma fixed halka anigu iska joogaan doonaya inaan maanta fasax baxo fasaxaygaasi aan u baxo waxaan iska shaqaysanayaa trade baan galaya waxaan faa'iidayaa $300 $500 $600 $1,000 baan gaarsiisanaya $1,000 baan doonaya inaan magaalada ku galo ama fasaxayga ku qabto haddii laakiin aan salary garo fasax iskuma hayo nolosheeda inaan manage gareeyo iskuma hayo maaragtay inay schedule-kayga inaan anigu maareyn karo so naftaada maaree isku day inaad maareyso riyada aad adigu riyoonaysaa mata hurdada kaa celisaa mise waa ta hurdada kuugu timaada isweydii ani hurdada inaan seexday riyadaydu ii diiday waxaan igu tiri sabab aan ku seexdaa ayaan waayay sababtoo ah waxaan doonayay inaan nolosha xaqiiq iyo ka gaaro guul alxamdulilah maanta waddada aan doonayay baan hayaa adigana waxaan ku rajaynaa waddada qabato wixii su'aala weli waxaan filayaa cidiima soo weydiin so waxaa la iga soo qoro halka chatka wixii su'aala cidda haysa inta aanan dhammayn chatka ma jirtaa okay waxaa jira telegramkeena macallin maadaama aan cusubahay bangigee ayaad igula talin lahayd inaan account ka furo anoo jooga somaliland ama waqooyiga soomaaliya tamaam waxaan ku sheegayaa walaalkay cabdullah waxaan kuu sheegayaa bangigaad isticmaalaysaa waa bangiyadeena somaliland iyo soomaaliyaba ka jira meel walba oo aynu joogno mostly anigu markaan bilaabay waxaan ku bilaabay bangiga loo yaqaano premier bank anigoo sidoo kale helay bangiga loo yaqaano dahabshiil kaarkooga visa premier bank mastercard iyo waxaad isticmaali kartaa waxa loo yaqaano salama visa intaba isticmaali kartaa any card oo international swift code-kaagana aad soo qaadato si lacagtu hadhow kuugu soo dhici karto internationally adigoo sheegay inaad investor tahay ama trader online tahay so Soomaaliya bangi walba waad ku trade garan kartaa oo leh
electronic ama internet banking ama banking systemka internetka loo yaqaan. Okay, indicatorska ugu fiican oo isticmaasho setting nala share garee ustaad. Indicatorskayga sida ugu fiican baa idinla share gareynaya, laakiin muhiimadu waa inaad fahanto meesha indicatorkan ka soo galay periodka iyo waxaan adigu idiin soo diri doonaa maanta periodka iyo indicatorka iyo moving average ku shaqeeya, size-ka ku shaqeeya, laakiin si aad size-ka u fahanto dabeecadaha marka hore la yar fahan isku yarday inaad maaragtay indicatorka aad ugu yar qalcashin karto si aad uga faa'iidaysato adigoo isticmaalaya mobilkaaga iyo maxaan ku rahdaye isticmaalaya sidoo kalena computerkaaga. Okay, su'aasha xigta screenka inaga xidh qofka furay waxaan u sheegay screenka inuu xidho. Okay, anigun baa inaan share gareeyo fiican tahay idinku inaan share gareysan marabo. Marka baasaboor lahayn lacag ma la bixin karaa? May marka hore waad dhigi kartaa lacag. Fadlan please screenka aad share gareynayso jooji. Qofkaasi walaalkay waxaan u sheegayaa screenka aad share gareynayso jooji. Fadlan teacher anoo baasaboor lahayn lacag ma bixin karaa? Ma la bixi karaa? Maya. Jawaabtu waa maya. Lacag totally ba lama bixi kartid baasaboor adigoo baasaboor lahayn baad account-ka samaysatay. Laakiin account-ka waxaa lagu weydiin doonaa inaad samaysato waxa loo yaqaano maxaan ku rahdaye waxa loo yaqaano maxaan ku rahdaye waxaad samaysanaysaa baasaboorka marka hore kaarkaaga aad isticmaashay kaarkaaga si aad isticmaashay waxaad u baahan doontaa waxa loo yaqaano maxaan ku rahdaye waa account-kaaga waa deposit. Refund wax la yiraahdo baad kaarkaaga ku samayn kartaa. Refund waa maxay? Lacagtaad kaarka laga shuban baa kaarka lagu soo celin karaa. Waa sharciga u yaala international banking. Waxaani waxay ku xiran tahay central bank wax la yiraahdo ama bankiga weyn ee dhexe ee caalamka ama world bank bay ka imanaysaa lacagahan maadaama ay suuqyada ugu badan uu maamulo bankiga adduunka. Marka si bankiga adduunka uu maamulo lacagtaad adigu hadhow xareysanayso waxay u baahan doontaa in lagugu soo shubo bank account-kaaga. Marka card sidee loo isticmaalay si lacag lagugu soo shubo waa qalad. Adigu kaarka hebel ama qof kale walaalka ay miyaad u diri kartaa lacag uma diri kartid. Laakiin markaad alaab iibsanayso internetka waad ka iibsan kartaa. So istooga inaad iibsato kaarkaagaad ku iibsanaysaa laakiin inaad lacag la baxdaay kaarkaaga ku iibsanaysid waxaa la rabaa si sharciya inaad lacagta ula bixi karto adigoo isticmaalaya banking system IBAN numberkaaga iyo waxyaabaha si waxaas oo dhan loo ogaado waxaa la ogaan doonaa in wadamada qaar lagaa raadinayo dambiile ka tahay sida Mareykanka oo kale platformka ku weydiinaya verification waxaa jira meel la yiraahdo verificationka ku jin passportkaaga iyo documentkaaga upload garee is verify garee si aad u hesho waxa loo yaqaano maxaan ku rahdaye verified account ama verified number oo ah tigtaa yar ee ka muuqata hadda maxaan ku rahdaa shaashadayda ee ah inaan verified ahay account-kaygu hadda waa verified account-yadayda aan isticmaalo oo dhan waa wada verified hadda account is verified anoo Turki jooga ayuu leeyahay so waa verified account-kaygu so waa inaad isticmaali karaa account verified ah waxaan filayaa timekii sessionku inuu dhammaaday so waxaan rajaynayaa in aan joojin doono sessionka intaan ku dayn doono inaad ka faa'iidaysateen baan rajaynayaa videogana waxaan koobayaa intaa wixii su'aalaha dambe